عالشوية روحو جحيل تبقيو هلي جيفاليلي ما يوردد وكهاتيري أنيقونا إنتاسان هبون أي بيبيهاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسودو جنال كاغا جنال كينا جنال كا دالون رشتيو دعوة دياد نوع سلطاي سبسكرايب نو سار شير لايك iyo كومنتي sidoo kale dacwada dad hore nooga mid ahayn mar labaad soo dhawaan ku leeyahay dacwada maanta waxaan ku hadlaynaa qodob in badan weydiiskiisa oo ugu batay oo dhowr jeer la isoo weydiiyay qodobkaasna qodob kale ma ahin waa kan meesha noogu qoran baro hab fudud oo ku soo jiidan kartid qalbigaasi jira yacni sidaad ku soo jiidan kartaa qof aad jeceshahay isagana uusan ku jeclayn oo kaasi jira. Actually qarnigan aynu ku jirno dad badan waxay aaminsan yihiin in jacaylku yahay wax jira halka kuwa kalena ay u haystaan in jacaylku uu yahay wax aanan jirin oo ku kooban afka oo kaliya oo aanan jirin oorka. Laakiin xaqiiqada waxay tahay in jacaylku yahay wax jira kaasi oo ka bilowda ka helitaan iskuna bedela dareen ku abuurma qofka bini'aadanka qalbigiisa. Haddaba daawadaha sharafta leh waxaan ku siinayaa 7 hab oo ka saacidi kara ama ku fududeyn kara qalbigaasi jeeda inaad soo jeedisid. Ugu horeyn, ha noqon qof ku degdega u bandhigida ama u gudbinta qofka aad jeceshahay fariintaada jacaylka. Number 2 waa inaad tahay qof furfuran dabeecad wanaagsan leh. Number 3 haddii aad tahay dumar waa inaad ahaataa qof xishood badan. Number 4 waa inaad tahay qof qurux badan soo jiidasho leh. Number 5 haddii aad tahay gabadh ama wiil ku dadaal sidii aad u waan lahayd qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo ama balwadiisu ay tahay adigoo aanan weydiin qofka aad jeceshahay balse raadi wada kale oo aad ku ogaan karto sida adigoo ka wareysanaya saaxiibkii ama saaxiibadeed adigoo aan laga dareemin ujeedkaadu waxa uu yahay. Number 6 mar walba uga sheekay qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseynayo ama markaas uu ka helo. Number 7 ogow jacaylku indha ma lahan qofka uu qalbigaagu raacay haddii uu yahay qof balwadiisu aysan wanaagsaneyn ku dadaal sidii aad uga waanin lahayd adigoo hadallo macaan ku hadlaya. Daawade waxaan rajaynayaa haddii aad 7daas qodob aad ku dadaasho in markaas aad kasban karto qalbi kasta oo ka sii jeeda. dadaal wacan ayaan ku dhihi lahaa daawade.